بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddii alla idmo maanta waxaan doonayaa inaan idila wadaago 3 aabis oo run ahaantii aan shakhsiyan anigu aad uga helay, aan rajeynay inaad kuna ka heli doontaan. ka koobaad waxa weeye fly chat, ka labaad listigar, ka saddexaadna waxa weeye hi translate. saddexdan aab, ka koobaad fly chat wuxuu qabtaa message-yada WhatsApp-ka ayuu ku fududeynayaa sidii aad u isticmaali lahayd ama message u diri lahayd adna lagugu soo diri lahaa. waxaanu sameynaynaa Play Store-keenu ka soo dejisanaynaa fly chat-kii waynaga soo dejinay. markaa anigu hore u soo dejistay, markaa open baan imika odhanaya. receive notification kaasna waxaad sameynaysaa on baad ka dhigaysaa, fly chat-kana on baad ka dhigaysaa. kabacdi waxaad sameynaysaa allow baad odhanaysaa, dib baad usoo noqonaysaa, tigtaasaa saaraysaa. inta aabisa doonaysid inuu notification-ka yar kugu sameeyo ama goobada yar halkaa kuu soo dhigo ayaad tigaranaysaa. iminka waxaan telegram iyo WhatsApp, inagu waxaan u baahanay iminka WhatsApp-kun bay u baahannahay. isagoon bayn waxaan sameynaynaa iminka waa off weeye gidigood, markaa WhatsApp-kun bayn on garanaynaa. okay, saasuu markaa ku dhan yahay. iminkana waxaan tijaabinaynaa message dhinaca WhatsApp-ka ayaan doonaya in laysoo diro. markaa waxaan eegaynaa inuu goobada yaraad halkan ii timaado, goobadii notification-ka sida messengerka kale ahayd. waa tan goobadii noo timi, message-kina waa kaa ii soo dhacay. markaa waa hawl fududeyn uun barnaamijkani. waxa weeye uun masalan iminka video kala daawanaysaa, kolba inaad ka noqotid videogii oo aad WhatsApp-kii geshid waa yaraa hawl. adoo hawshaadii kala wato ama postiyadaadii Facebook akhrisanaya ayuunbaad dhinacana dadka fariimo uga diraysaayo. ka labaad listigar wuxuu kuu sahlayaa in sawiraan mobilkaaga hore aad uga delete garaysay ama hore kaaga masaxmay inaad dib ugu soo ceshan kartid. muddo hore sawiraan ku jiray mobilkaaga iminkana aan ku jirin, sidaad recovery u sameyn lahayd dib ugu soo ceshan lahayd weeye. waynu soo dejisanay, markaa waxaan odhanayaa open baan odhanayaa. bacdeen waxaan odhanayaa start basic photo, halkaasaan ku dhufanayaa. markaa waxaad sameynaysaa uun sawiraantii kaa masaxmay ee aad muddo hore delete garaysay baad ka dhex baaraysaa. sawiraantan kuwii kugu jiray kuwii kale way isku dhex jiraan. markaa sawirkaad u baahan tahay tig un baad saaraysaa. tig markaa saa saartin waxaad odhanaysaa recover baad odhanaysaa. markaa wuxuu ku weydiinayaa halkuu kugu save gareyn lahaa. markaa waxaan iska odhanayaa un safeta caadiga ma ku save garaysanayaa. markaa folderka doonaysa baad ku save garanaysaa. marka waa ka toos saasuu kugu recovery complete waa ka soo qoray. markaa saasuu kugu save gareeyey. ka saddexaadna waxa weeye hi translate oo isaguna kaa saacidi doona luqad aanaad garanayn sidaad ugu turjuman lahayd. masalan qof baad ku hadla luqadda carabiga, adiguna ma taqaanid, waxaad taqaanaa luqadda ingiriisiga. WhatsApp-ku kugu soo diray message, balse laakiin message-ka carabiga ah ma fahmaysid, adiguna ingiriisigaad ku hadlaysaa. siduu kaaga saacidi lahaa uu kugu turjumi lahaa si dhaqso ah, copy garan lahayd oo aad dictionary-ga la tegi lahayd, halkii si dhaqso halkan kugu turjumaya. waxaan soo dejisanay hi translate-kii, markaa waynu ku dhufanaynaa. markaa waxaan odhanaynaa okay baan odhanaynaa. saddexdaa waxay surface hi translate off to hooseysan ku dhufanaynaa. bacdeen waxaynu tegaynaa halkay ku qoran tahay hi translate, halkaa off taaben on ka soo dhigaynaa. okay, dib baynu soo noqonaynaa. waxaan imanaa kan, waxaan sameynaynaa on baynu odhanaynaa. dabeetana dib baynu uga noqonaa. waxaynu tegaynaa aabka dushiisa
waynu ku dhufanaynaa allow permission kaasina okay siinaynaa. marka saasuu ku dhan yahay. luqadihii baad dooranaysaa luqadaha lagu kala turjumayo. iminka my language waxaad ka dhiganaysaa waxaan ka dhigay Ingiriisi, luqadan kalena waxaad ka dhigtaa tusaale ahaan Carabi ka dhig. marka iminka saasuu ku dhan yahay. halkaasaynu taabanaa switch halka uu ku sawiran yahay ayaynu taabanaynaa si uu inoogu soo saaro calaamadda yar. calaamadda yaraan wadwado oo ah tii hadhow tole waxay noo turjumaysay. iminka message-kaas oo kale ayaa yimi oo Carabi ah. masalan anigu fahmi maayo, marka waxaan sameynayaa waxaan soo qaaday calaamadii yareed markii tigaraynay saasaan u dul saarayaa. waa ka wuxuu soo qoray how are you soo qoray. marka jawaabtii baan waxaan qorayaa I'm fine baan qorayaa kale. marka waxaan sameynayaa calaamadii baan soo qaadayaa waan dul saarayaa. waa ka uu turjumay. marka saasaad u diraysaa. marka qofku markuu kuu soo diro luqadii aanad fahmeyn, marka hore message-ka lagu soo diray turjumo oo soo dul saar saas oo kale saad u fahantiin. bacdeen adiguna qor dabeetana u dir. marka waxaa jira asxaab badan oo dee asxaab haddana kala luqada oo laga yaaba inaysan aada isu fahmin. marka aabkani wuu idinka caawin doonaa. waxaan rajeynayaa inaad wuxuun ka faa'iideen. aad iyo aad baad mahadsantihiin intaad waqtigiina ii hurteen aad daawanayseen videogan. waxaan idin leeyahay nooyo mar kale insha allah.